السلام عليكم magacaygu waa Xuseen Cabdi Faarax waxaan ka mid ahay ardayda dhigata Kasma Academy waxaan joogaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ma sha Allah Kasma Academy markii aan ku soo biiray wax badan ayaan ka fahmay oo dhanka luqadda Ingiriiska Bismillah. I'm greeting all of you the best greeting of Islam, that is peace of Allah be upon you. My dear teachers of Kasma Academy Online. Also, I thank you how you teach us learn English language. Firstly of all, if I introduce myself, my full name is Liban Mahmoud Mohammed. I was born in Mogadishu, the capital city of Somalia. Also, I was born in 1990. But right now I live in Mozambique, especially in Pemba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan ka mid ahay ardayda Kasma Academy. Aad iyo aad baan salaamay dhammaan macallimiinta iyo ardayda Kasma Academy. Ana waxaan ka mid ahay ardayda Kasma Academy waxaan joogaa magaalada Boosaaso. waxaan bartaa hadda levelka ugu hooseeya waxaan ahaa dadka aan hore wax soo baran waa kan buugayga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Isaac Muhammad Khaire. I live in Dubai, Somalia. I am 32 years old. I am businessman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So do I Kasma Academy. Maanta waxaan qaadan doonaa arday silent letters in English. Erayada ama xarfaha aan lagu dhawaaqin ee ku jira erayada Englishka. Alright. Taan waxay saamaysaa maxay dhawaqaaga ama saad ugu dhawaaqayso xarfaha qaar. Okay. Waxaan ka bilaabi doonaa P. Xarfka B. Goora aan ku dhawaaqin ama marka aan lagu dhawaaqin asoo ku jira waliba xarfi ama eray ka dhex muuqda. For example, home. Bida laguma dhawaaqay waxa lagu joojinaya waa maxay enter. Inta badan MEB marka istaacana bida laguma dhawaaqo waxa lagu joogsaa waa maxay enter. Climb, comb, crown. Assalamu alaikum. Soo dhawaada Kasma Academy. waxaan idinku bishaareynaa koorsada Englishka ahaa ee online-ka 4 level oo English ayaan bixinaa. Levelka ugu hooseeya waxa lagu talagalay qof aan English hore soo baranin oo seeska laga soo dhisayo. Levelka labaad waxa lagu talagalay qofka inay ka dhisto erayada dhawaaqooda. Sidoo kale levelka saddexaad waa general English. Afartii skill Englishka ayaa la barayaa qofka sida reading, writing, listening iyo speaking. levelka ugu dambeeya waxa lagu talagalay qofka inay ku hadalka ka dhisto oo speaking. hadda waxaan sameynay qiimo dhimis 20% waqtigiina waan soo koobnay waxa bixinay macallimiin native speakers waxaan idinku bishaareynaa hadda inay socoto diiwaangelinta oo isdiiwaangelin kartaan wixii information intaa dheer nagala soo xiriira nambarada xagga hoose ku qoran. soo dhawaada Kasma Academy. Assalaamu calaykum.